daawadayaal dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga oo idinkaga imaanaya magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. barnaamijkeena bandhiga ayaa maanta waxaan ku soo qaadan doonaa wareysiyo kala duwan oo aan la yeelan doono jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Koonfur Afrika oo ka cabanaya sar u kaca ku yimid shidaalka. magacayga waa Xasan Muuse Xasan ama Xasan Jabuuti kabaniga waxa la yiraahdaa Somgas waxaana sabraygaynaa gaaska LPG gas Soomaali badan waxay ka cabanaysaa in shidaalkii iyo gaaskii uu ku kacay saameyn intee leeg ayuu wadankan Koonfur Afrika Soomaalida ku nool ku yeeshay gaaska 2019 COVID-19 soo biloomay markasta bil kasta uu ku darsamay wax oo hadda South Africa gooni ma aha wax adduunka oo dhan marka wadamadii laga soo qaadayo sida Qatar iyo Ruushka iyo wixii dhan baa adduunkii isbedel weyn ku socda marka gaaska bil walba ku darsamaa halkii aan awal ka siin jirnay 150 hadda waxaan siinaa 230 wax kasta times 2 bay noqdeen qaybaha shidaalka idinka qaata ama gaaska ka qaata ee saameynta uu ku yeelatay yaa kamid ah bulshada Soomaaliyeed baa kamid ah bil kasta marka lagu daro qof walba supply uu leeyahay wala isku xiran ilaa ceelkii laga soo qaaday ilaa halkan la keenayo wala isku xiran yahay marka annaga 160 siin jirnay oo maanta maray 230 waliba meelaha qaar kood 300 hataa u taagan yahay halkii aan $10 example aan dollar ku bedelo $10 aha ama $9 aha maanta 14 $5 ma siinna marka waa dareemi kartaa culiska jira mid aan siinay $20 siinay waxa siinaa $30 oo 19 kg mid ugu weyn 48 ana ayadana waxa siinaa oo awal siin jirnay 50 iyo 60 waliba 40 mar qaar siinay maanta 100 baan siinaa marka isbedelka waa dareemi kartaa culayskaas inta lag oo keensaday COVID-19 ka xanuunadii haddana wada artaabade waxa ka biloomay dagaalada biloomay oo Ukraine iyo Russia wada dagaaladii Russia oo shidaalka gaas ku badanta soo saaraysa marka adduunka oo dhan baa wax sii socda mooyaan wax degaya ma jiraan dhanka kale shidaalka petroolka ay gaariyaashu isticmaalaan kambanigaaga iyo dadka Soomaaliyeed sidee buu saameyn ugu yeeshay kambanigaaga hadda wuxuu ugu yeeshay kulli anaga waxaan nahay waa supply maanta dhan gaariyaashu socdaan oo wareegayaan oo xaafad bay u gudbayaan oo awal meeshii 12 la ran laga siin jiray hadda maanta 22 maraya asana times 2 noqday asana culays badan ugu yeeshay awrta tagaasida ku yeeshay wuxuu ku yeeshay supply oo anaga aan ka midnahay ayuu ugu yeeshay marka wax un gaas kala kooban ma wax shidaal oo dhanba kor buu kacay hatta cuntadii ba kamid ah oo kor u socota maxay tahay sababta in gaaska uu muhiim u yeeshay wadankan Koonfur Afrika wadankan hadda sida wadankeena kala Soomaaliya ka dhuxul iyo waxba la iska isticmaalaa dadkina waxaan moodaa in hadda ay korontadii iyo waxyaabaha kordhay ka wareegayaan gaas dadkii ay la qabsadeen gaaski ama joojin karo wax loo baahan yahay oo sida biyaha loogu baahan yahay noqotay in cuntadii uu qofku u boobsiyo u dhaqsado marka dadka kama maarmaan maadaama uu ka maarmin in wixii ay sii kacaan oo adduunyadina ay hadda business noqotay oo wadan walba inuu wada Russia ku guumeysto Europe ku guumeysto oo yiraahdo dagaalada oo sabab u tahay hadii aad Ukraine qabsan waa shidaalka ka jaray ay noqoto marka waa wax loo baahan yahay especially Soomaalida awalkii hore inta South Africa dadku mid yar bay isticmaalaan kg-ga waliba especially iyaga ka cabsanaya hadda hindida dadka wadankan uga soo horeeyay South Africa waxa laga yaabaa in qofkii 2 xab 3 xab oo taal guriga oo markuu gaasku uu qaaliyoobay xataa uu dhigto kayd uu dhigto laakiin annaga kayd ma dhigano halka xamru ka dimo qofku soo wacay hadda ikan hadda waxa laga yaabaa in meel ku maqan tahay marka bil kastan arbacada uu qaaliyo bil kasta arbacada uu qaaliyo ku darsamaa marka waxa oran la Soomaalida bal newska iyo wararka inta la socota markasta uu qaaliyoobay extra dhigta wax Soomaaliyeed extra dhigto 2 xab dhigta ma hayno marka inaad dhigtaan markuu qaaliyoobay ay si dhigtaan baa fiican magacaygu waa Abshir Xuseen Gurey waxaan deganahay magaalada Johannesburg waxaan kamid ahay ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada Johannesburg su'aasha ahayd shidaalkii iyo saameyntii dhibaatooyinkii uu noo geystay waxa kamid ah gaaska guryaha aan ku isticmaalno oo ahayd 130 rand wadanka lacagtaana oo maantana uu saameyntii dagaalka kadib uu marayo 250 shidaalka maqaaxidoo kale meeshaan ka soo galan jirnay $50 lacag lagu qiyaasay maanta wuxuu marayaa inaan ka soo iibsano ilaa lacag $100 right shidaalka gawaarida aan ku isticmaalnay meeshaan 12 rand oo wadankaana kala bixi jirnay maanta 22 buu marayaa marka saameyn lixaad leh ayuu inagu yeeshay waxyaabaha macnaha oo waxa soo dhan sababayeen wax weeyaan problemkan iyo dagaaladan ka soo xisboonaaday meelihii aan wax ka heli jirnay shidaalka especially saameynta ugu weyn dagaalka Ukraine ayuu nagu bilowday
waddankan in muddo aan ku noolahay last 24 sanadood ee ugu dambeysay noloshayda waddankan aan ku qaatay waxyaabo badan aan u soo joogaa jirto waxyaabaha aan u soo joogo waxaa ka mid ah inagoo shidaalka waxaan xasuustaa anagoo shidaalka full tank kaga dhiganayna lacag $2 ka yar maantana waa taad aragtaan marba marxalad san u soo maraynay ayaa waxaan la soo kulanay marxaladii COVID-19 tii COVID-19 sicir bararkeeda anagoo la sii daalaa dhacayna ayaa dagaalkan Yurub haddana saameyn lixaad leh oo nagu yeeshay magacayga lagu magacaabo Maryan Sheekh Maxamed kuna magac dheerna nistayda Maryan Kabaale waxaan ka tirsanahay jaaliyadda Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada Soomaaliyeed oo maqaayadleyda kuna nool South Africa Koonfur Africa magaalada Johannesburg gaar ahaan Mayfair sarakaca shidaalka saameyn weyn ayuu nagu yeeshay shidaalkii aan ku gaday jirnay last year $800 una dhiganto $50 hadda maanta waxaan ku gadanaynaa $100 lacag u dhiganto oo $1500 ah saliida $80 ayaan ku gadan jirnay sanadkii hore hadda waxaan ku gadanaa $140 sidoo kale korontada $100 oo lacagtaan $100 oo lacagtaan ah waxay noo naqan jirtay 70 unit hadda 30 unit ay naqantay $7 ayayna u dhigantaa $100 marka sidoo kale kirada guryaha kale burka kale bariiska kale maadaama maqaayadley aan ahay waxyaalaha aan isticmaalno inta badan qudaarta kale wax walba sarakac ay nagu yeesheen sababaha dagaalka anagoo la sii daalaa dhicayno COVID-19 oo wax walba nagu qaaliyoobay oo ganacsigii yaraaday ayaa haddana dagaalada Yurub noogu sii darsoomay marka Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay wax walba sida hore iyo si ka fiican ay noogu soo laabtaan anigoo Xasan Cabdi Usmaan oo kamid ah tagaasiilada Johannesburg iyo Uberka niyow sicir barar dhibaato badan waddanka ka imaaday shidaalkii aan ku gadin jirnay 11-12 hadda waxaan ku gadnay 22 ran shaqadii way noo saxmii laaday lacagii aniga ku tashin jirnay hadda maalmahan lama helo familadu way sugayaan dhibaato fara badan waddanka taalo covidkii dartiisa Home Affairs ma shaqeeyo wax la qabanayo ma lahan magacaygu waa Xuseen Nuur Macalin Cabbaas waxaan ka mid ahay dhalinyarada degan Johannesburg waddankan South Africa niyow sicir bararkan jira horta heerar fara badan buu soo maray 2019kii wixii ka horeeyay xaaladda adduunka oo dhan iyo waddankan caadi buu ahaa waxaan ku gadan jiray shidaalka 11 ran iyo sentiyaal COVID-19kii markuu bilowday oo adduunku uu markaas xaalad adag wajahay maalin baheer ayuu soo mareeyay oo shidaalkii waa lagu daraayay 2 sano oo hadda la soo dhaafay oo waddanku uu ka jiray xaalad adag oo markaas COVID-19 uu sababay oo bandow ah maalinba waa lagu daraayay shidaalka khaasatan midka hadeertaan markaas muxuu ahaayay aan wajahayno oo shidaalku in uu gaaray 22 ran iyo wixii ka badan ah waxa hadda loo aaneynayaa dagaalka markaasi ka dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine magacayda waa Ismaashi Xasan Raage ku magac dheer galqad waxaan ka mid ahay dhalinyarada tagaasiilada Johannesburg to Pretoria waxaan ka cabanaynaa sicir bararka nagu imaaday uu noo keenay coronavirus since 2019 up to now shidaalkii horaan noo ahaa 12 ran iyo sentiyaal hadda wuxuu nagu tagay inaan ku gadano 22 ran ilaa 30 inta u dhaxayso waxyaalahaas oo dhan waxaa noo keenay COVID-19 waxaana naga xiran sida Home Affairs waxyaalaha shaqadanada ay ku maartay ku tacalluqneed magacayga waa Maxamed Carabi Cakood inkastoo dadka yaqaan Maxamed Cali Ahmed laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego hal mid waddankan South Africa ku noolnahay inkastoo South Africa xaalado kala duwan aan soo marnay laga soo bilaabo 2019kii oo COVID-19kii soo dhacayna wax isbedel badan waddankan ka dhacay oo ay ka mid tahay inuu dhaqaalihii waddanka ka jira mar hoos u dhacay haddana waxyaabo badan ay kor u kaceen sida doolarka oo kale sida shidaalada oo kale ay aad ugu sii darsameen taas oo dhibka noo keenaysa ay tahay wadamada hadda dhibka ka taagan ay yihiin sida COVID-19 markuu noo yimid oo kale ka bacdi haddana dagaalkii ka dhacay Yurub oo sida qaasatan Ruushka iyo Ukraine dhex maray waxaan u maleeyaa muddo laga joogo 2 maalin ka hor in shidaalkan 22 laga dhigay saad u maleynaan uu ku sii socon doona taasoo saameyn weyn ku yeelatay shaqadeeni sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka ee ay ka cabanayaan Soomaalida ku nool dalkani Koonfur Afrika ayaa qayb ka ahaa caqabadihii ka dhashay COVID-19 ee 2019kii soo bilowday hase ahaatee qiimo kaca ku yimid shidaalka ee ugu dambeeyay ayaa ka dhashay dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine halkaas oo Ruushka laga keeno gaaska ugu badan ee caalamku uu isticmaalo Mahad Maxamed Sheekh bandhiga Universal Johannesburg Koonfur Afrika